بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ku salaamayaa ummadda islaamka dhammaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed walaalahayga Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha joogtiin Ilaahay ha idinka amaansado walaalayaal maalmahan waxa socda waa u jeedin qof walba miidii soo gal maanta maxaa u soo galay lama dhahayo macruuf bay iska noqotay akhbaartii telefisiyoonkii meel walbo waxaa lagu soo sheer gareynayaa maaragtay coronavirus udurkii la dhahay Ilaahay ha naga yasiro Ilaahay shartiisa ha naga qabto marka walaalayaal horta in la udbileysto la xasuusto diinteena iyo maaragtay diinteena waa nasteeho diinteena la xasuusto maaragtay markii la yaabo oo salaadeena oo dukno duceysno adkaar sabaax la akhristo adkaar misaax la akhristo habeenkiina duceysto maalintiina duceystid quraankaagana akhristid nadaafadaadana ku dadaasho aad bay u fiican tahay maasha Allah marka xaaladaha aad bay u qasan yihiin waad u jeedin dawladihii oo Ilaahay weyn awood leh awood lahayo maaragtay dagaal ahaan iyo daawo ahaan iyo wax kastaba oo maanta noogu awood sareeyay xaaladooda ay u galgalinayso marka anaka wax kale aan qaban karna ma lahan kulli waxaan sameyn karnaa inaan duceysno oo wacyigelintaas oo ducada aan iskugu sheegno maaragtay hadda wacyigelin ma yara wadaadada habeenii maalin ducadan soo sheegayaan ducooyina la soo jeedino hala duceysto hala weyseysto gacmaha la iska dhaqo hala isnadiifiyo contactiga hala yareeyo wax kasta waa la leeyahay waa laga hadlayaa marka qof walba oo rabana maxaa inuu ka hadlo waa ka hadli karaa hala sii kordhiyo wacyigelinta marka ducada waa kana maxaa la tahay qofkii ilaawsan ducadii rasuulkeena soo dardaarmay Allahumma salli ala sayyidina Muhammad halkan maxaa la dhahay waxa la dhahay Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal junun wal judam ومن زائل أسقام دعاء محاولة فإذا بدن واية إن إلهي وحى كامل قال برس يواليدا يوجودانك يوحي هن أو هن يا إلهي وكامل قال إلهان كامل قالني مركز هذا سلبته إستو صباح السوكا أذكار صباح هذا أخرسه بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم دعوينك ويبادنيهين الحمد لله رب العالمين دعوينك هلا أخرسته نظافة هلا قد ذالو قامها هلا سكرقه إن هلا يريو مارتي ميلها بوشيدو دتك كبادنيهين أو رور كلو بشرو مارتين هلا جوجيو إن وحي هرو مارتي هلا يسك إلا وميل هلا سكديقو heblaay ba xaflad igu aday heblaay siyaasas dhaxday iyo meel 15 qof ka kulmayso yaa la aadin waxa laga yaabaa adiga naftirka inta adiga sii socotid maaragtay inaad adiga jidka lagu daarto qofkii dad intaas oo dad ay hataa adiga u geysid ma ahan meenaheed adiga in lagu soo daaranayo marka taas yaa laga kala xishoonin walaalay waqti ku dhahda kaalay maaragtay maanta intaas waxaan sameeynaa kida laba qof saddex qof afar qof haday yihiin hataa dib ma lahan waxaad meel fog kala fadhiisan kartiin waa kana qof walaal qofka guriga soo galna gacmihiisa haduu iska dhaqo markaas isnadiifiyo tawakkal ala Allah ila kulli dad islaamana ma kala meerano way iska fiican tahay laakiin meel xaflad jirto meel oo maaragtay kulan jiro meel hirig jirto iska joog dadkana mashkilaha u geenin adigana meesha balaayaha ka soo qaadanin meel hala fadhiisto dhaqaatiirta habeen maalna ayna hadalkaas ka hadlooyaan taas waa taas marka hadii tii ducada iyo waanada meeshan uga baxno waxaan rabaa inaan ka hadlo qodob oo maaragtay ka saabsan qohootiga dadka qohootiga ah waxaan u maleynaa in oo dhibaato badan soo wajahi doonto aniga waxaan u shaqeeyaa horta hay'ad oo la dhahayo Caritas oo dadka caawiso Soomaali in la dhahayo u maleynaa bisha cas marka wax walbo maaragtay marxalad oo cusub oo maaragtay soo kordhayso dawladda habkooda iyo xaaladaha oo siyaasadeed hataa hoos ayay noo soo gaarayaan markii laga baxo akhbaarta marka waxa laga yaabaa maanta dhibaatada oo taagan waa aragteen horta khaasatan dalka Jarmalka aniga dalka oo waxaan ka noolahay Jarmalka calanka waa u jeedin keegana halkaas oo iga dhagan yahay marka maxaa la dhahay isaga
maamadii oo la dhahayay Angela Merkel way hadashay shalay aan rabay inaan kasoo hadlo laakiin Janice baan u waayay daraaday hadlaysay wax ay ka hadashay wax weyn ay ka hadashay maaragtay waxay dhahday dhibaato weyn baa naga soo fool leh dakhligii maaragtay waa yaraaday dhibaatadii soo kordhay maxaa la dhahay dagaalkii labaad oo adduunka dhibaatadiina soo saameysay mid lamid ayaa haddana maaragtay waxay dhahday dhaxda ugu jirna ama kasii socna marka haddii oo saas loo hadlo ay dhahday jawigiina wax badan baa la bedelayo wax badan nidaamo badan waa inaan bedelnaa taas waxay noqon kartaa wax walba dhaqaalihi xaggeeda in wax laga bedelo maaragtay yani jirida xaggeeda in oo maaragtay dadka oo la taliinta ahaan ay noqon kartaa wax kastay noqon kartaa marka haddii oo markii hore si oo nidaam leh loo joogay qof walba ceeriska qaadan jiray bishii ama labadii bilood hal mar oo job centerka wixii jiray oo la dhihi jiray kaalay bal maxaa la isaga maxaad haysaa iskuul baan dhiganayaa iyo bilbilbilo iyo been laga joogay sheekadaas waxaan u maleynayaa inay dhammaan doonto la iska daba imaan doono qofkii 400 qaadan jiray oo la siin doono 200 laga jari doono 200 marka aniga fikradeyda aan ka hadlo sababta dhaqaalaha haddii hoos u dhac meel walba haduuduweed baa xiran waad u jeedin ileen haddii dowladda hadday oo soo galayno maaragtay canshuur soo galayno dakhli soo galayno dhaqaalaha hoos u dhaco dee adigana waa lagu soo saameynaa soo maaha marka haddii adiga maaragtay oo aad sameyn jirtay yani masaariifta adiga ama masaariif ahaan aniga kama hadlayo dadka oo ii sheegaday ganacsiga waaweynka ah ama dukaamada leh dadkaas keedkooda ay cunaan wixii meel ay dhigteen ayay cunayaan wax mashaakil ah oo ayaga hayo habeeraatee ma jirto jiradana ilaahay anaga qabto laakiin haddii adiga oo usub tahay weli aan shaqaysanin wax fiican meel ku oolin horta waa inaad dadaashaa oo maaragtay qutul daruuriga maalintii wixii oo adiga soo adeegan lahayd wixii faataalnimo dhan meel iska dhigtid waxaa waay dumarkeena horta dhibaato waxa ay ka taagan tahay shoobankooda ayaaba maaragtay adduunyada qasaarinaaba dharka maanta haddii lasoo gato waxaa la leeyahay beri oo kan da waxaan ka aaday ishaqadiga waxaan ka aaday kan darad xafladii fulaana ka aaday waa soo qarxiyay bas waay waa la hareynaa armaajada la gelina kan wareera ku daa ilaa laga ilaabo maaragtay marka muddiida la soo gaday waxaa laga yaabaa lacagtaas ama qarashkaas in loo baahan yahay dad walaal u baahan yihiin oo maaragtay oo maanta laga dhadheelo laakiin hadda indhahaaga fur haddii adiga aad isticmaali jirtay maaragtay 400 bishii 200 isticmaal haddii aad isticmaali jirtay 100 iyo maaragtay 300 isticmaali jirtay 150 isticmaal haddii 100 200 isticmaali jirtay 100 isticmaal ma fahantay marka hala dhaqaalaha sababta wax walba ayaa dhici karo hatta waxaa laga yaabaa dad badan inay shaqadooda ka waayaan dad badan inay shaqadooda ka waayaan oo meel walba la iska soo buriyo maadaama xaalad horta meel ay gaari doonto xaalad Allahu aclam waa inta jiridan xal looga helay oo talaal laga soo saaray oo maaragtay xal looga helay maadaama jirid inkastoo jirid ay dadkii oo horey u xanuunsanaayeen iyo dadkii waayeeliinta iyo dadka maaragtay caruurta difaac lahayn iyo ayaa ka dhinta la dhahay laakiin waa u jeedin milyoomada dhimanayso maanta Allahu aclam lama dhihi karo de kulay waxaas waa wax la iska sheegay laakiin waxa fiican mar walba inaad adiga digtoono ahaatid mid kale هذا ولي شاكديان كوجود جرا مارتي دغاليه iyo reer Yurub iyo reer ceer qaadato Yurub kaliya maan meel walba la joogo oo qaxooti laga yahay ceer laga qaato maanta in saas looga fikiro way fiican tahay haddii wax la daadin jiray wax la dhaqaaleysto maarteen oo joogo wax laga bedelo nimanka hadday abi jireen balwad micno la'aan ah inay joojiyaan waxyaabaha shawaarmada iyo bedsiga iyo qashanka iyo maqaayadaha lagu soo cunayo maanta lacagaha lagu gubayo in la joojiyo raashin fresh ee nadiif ee guriga laga karsado wiilasha haddaad tihiin haddaad qofkii ka siina hataa inuu si wax loo karsado YouTube ka gal maanta baasta karsanayso sida loo kariyo baasta ka qor fud waa ku soo baxaysa wax alaabtaada soo dhigo jajak waxaad karso iska boobsi bariis
geyso bitsi geys wax kasta maanta waxaa laga helayaa internetka marka maxaa unta fareesh ahayn olooshka xanuunjinayso meesha jir ah kasoo qaadayso lacagtii aan ku deeqaynin rafaadkaas iyo waxaas dhan iska ilaa waxaaga dhagaalayso qofkii shaqeynaya shaqadiis allah u barkeeyo oo marka maxaa la dhahay sidee qofkii shaqeynaynin wixiisa ceertiisa ah tartiibsado kulley waa u jeedin xaaladda hadda iskuul ma jiro shaqo ma jirto waa la wada fadhiya aniga waa shaqeynaya waa kana maanta meeshaana dhaqdhaq aan ku hayaa shaqo ma jirto shaqadii waa xiran tahay ilaa amar dambe ayaa la dhahay shaqaale joogto malan xafiiskii wuf waay ma garata marka walaalaha qaaliga ah horta wax walba in laga fikiro way fiican yihiin aniga ma ahan inaan buufis idin gelinayo oo dadka ka cabsiinayo sheekada saas ma ahan laakiin maxaa la dhahay kheer wax ma kaa dhibaya sharcotoo hay waa fahantina u malayna hadda aniga waxaan deganahay meel oo suuq ah maaragtay suuq arab oo naka aan dhaxno laakiin laga iibiyo waxyaabaha halaasha sida hadduu hilibka yahay haddii raashinka yahay haddii wax kasta ay yihiin maaragta tamartii wixii dhan oo laga iibiyo taxi maxaa la dhahay ma raacayo bas ma raacayo waa kaas ilbaabkeeda ku taala waa dega waa soo fiirinaa maalin walba haddaaya waxa aan rabo inaan waxyaab kasoo iibsado wixii maalin walba badeecadii way sii qaaloobaysaa qaaliyay sii noqonaysaa marka badeecadii haddii oo ramadaankii adiga isku diyaarinin oo wixii alaalo wixii oo banaanka laga keena waayo raashinka halaasha badanaaba banaanka laga keena banaanka wixii laga keenayo dhan haddii oo maarata xuduudadii la xirtay oo laga yaabo maarata diyaarooyinkii adduunyadii inay wixii dhan isxirxireen wax alaalo wixii hadda yaalan la kala guranayo hadhoodii soon la-aan iyo kugu dhacayso ama gaajo waa dhibkeeday leedahay soo adeego haddii meelaha wax ku xirxirinaysay furfur maaragtay suuq aad soo adeego laga bilaabo maanta ilaa ramadaanka wax alaal haddaad qarash u heli karta soo buuxso wax alaal waxaa is leedahay qutul daruuri waaye waa loo baahan yahay aanaha haddaad soo gadan jirtay tan oo maaragtay 1.5 kan baakooyin ku jirto ama 3.5 ka ah adiga taas aad isticmaali jirtay meel iska dhig waxaad soo iibsataa gasaa waaweynka maaragtay gasaawooyinka waaweyn oo 4 kiilo iyo ka badan ku jiraan 2 3 4 jubsoosi ilmaha hadaad leedahay kaba sii daranba waad fahantaa u malayna daawadaada maaragtay bristolkaaga hanuun baabigata tii qandhada u rooneed wax alaalo wax banaanka kaa jira iyoynsan jirin soo diyaarso gurigaaga soo dhigo isbuuci hal maalin soo adeego intaas haddaad soo adeegtid hataa hadda ha isticmaalin hadhowdii markay qaaliyoobaan oo masla waayo mas xaaladda ay aada u xumaato ayaad laga yaabaa inaad u baxsatid marka maxaa la dhahay isaga ilaahay horta hanaga qabto jiridaan maaragtay ilaahay hanaga yasiro waa dhibaato aada iyo aada u culus weligeyga ma arkin dhibaatadan oo kale mana soo arkin waa laga yaaban yahay waxaad u malaysaa aakhir zamankii la sheegay inay tahay subxaan allah jirile halmar dadka isku soo galaysa hurufsiinays waa maqlay jirooyin badan oo adduunka baabac ka dhigan laakiin tan oo kale wallaahi waaba maba arkin baan horta ani khaasatan ma arkin marka walaalaha qaaliga ah fiidiyaha waan dheereeyay maaragtay ani ma jeceli fiidiyaha dhaadheer oo maaragtay dadka iska daldalamayo ma fiirsan jirin ilaa 5 daqiiqo fiidiyaha hadduu ka badan yahay ma fiirsanayo sababta waqtiga u hayn iyo jaanis marka fiidiyaha waa idan ka dheereeyay waxaan leeyahay qaraal ahaa taasna hala sheer gareeyo maaragtay leegtan hala saaro ummadda walaalaha islaamka hala gaarsiyo qof oo maaragtay ra'yigan madaxiis ku jirno ama xasuusnayn inuu wax ka xasuusto oo jawigiis wax ka bedela ma aqoona marka waa kaas maxaa la wadaag walaalihiina khayr badan waa idin rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh